taariikhda qortay mar ay reer yurub iyaga dhexdooda iskaga toon jireen dawladda islaamka imkan waxay isku dayeen inay taariikhda baabiyaan si ay u baabiyaan waxay sameynayaan wax kasto ka caawinaya inay taariikhda masaxaan sida soo saarista filmaan taariikhda uga hadlaya si khaldan si ay jiilka islaamka imka soo koraya ugu diidaan inay taariikhda wax ka ogaadaan mawduucana maanta waxa uu ku saabsan yahay daawade sulaymaan qaanuunii ninkii jiifka u diiday reer yurub yara jooji muuqaalka daawade ma joojisay subscribe channelka hadaan ku hayn subscribe haddii aad wax ka faa'iideen muuqaalkan la wadaag saaxiibkaas isaguna wax uga faa'iido mahadsanid sulaymaan bin saliim bin bayaziid bin maxamed al-faatix suldaan sulaymaan waxa uu dhashay markay taariikhdu ahayd 900 hijriga waxa uu ku dhashay magaalada loo yaqaan Trabzon oo xilliga uu ka talin jiray aabihiina waxa la oran jiray Saliim awgiina waxa la oran jiray Bayaziid Sulaymaan aabihi uu kori waxaana uu barbaariyay si wanaagsan waxa uu baray culumta kala duwan ee islaamka iyo maamulkaba Sulaymaan markii uu weynaaday ayaa aabihi waxa uu doonayay inuu inankiisa maamulka baro si uu xukunka u qabto marka uu dhinto kadib Sulaymaan awgii oo markaa maamuli jiray dawladda Cusmaaniyiinta ayuu inankiisa u weydiiyay inuu u dhiibo dhul uu maamulo waxa uu wadaba aakhirkii waxa uu dhiibay meel loo yaqaan Kafa Saliim oo ah Sulaymaan aabihi ayaa waxa uu damac ka galay boqortooyada uu maamulo Bayaziid oo ah Saliim aabihi kadib Saliim dagaal ayaa ku qaaday aabihi aakhirkiina uu kala wareegay boqortooyadii Sulaymaan isagoo meeshii uu awgii u dhiibay 3 sano maamulayay ayuu aabihi dawladda qabsaday isla markiiba Saliim uu yeeray inankiisa Sulaymaan waxaana uu u dhiibay dhul kale oo la dhahdo Maniisiya si uu xukumo inta uu Sulaymaan aabihi talada hayay ayaa waxa jiray laba dawladood oo awood badan oo reer Yurub kuwaasoo badda ka talin jiray waxaanay haayeen Isbaanishka iyo Boortaqiiska waxay isku kaashadeen labada dawladood inay xaq dhaqaalaha kala dagaalamaan dawladda Cusmaaniyiinta isla markii waxay ka xidheen wadooyinka dhaqaalaha ka soo galay dawladda Cusmaaniyiinta kadib Saliim waxa uu dareemay weerarkan ay ku hayaan labada dawladood ee reer Yurub isna waxa uu go'aan ku qaatay intaanu dagaal ku qaadin inuu marka hore mideeyo dawladda islaamka iyagoo markaas ku duubeen inay ka hortagaan labada dawladood isla markiiba Saliim waxa uu dagaal ku qaaday dawladdii Mamaalikta oo ka talin jirtay Masar kadibna dawladdii Al-Safawiya oo ka talin jirtay Iiraan inta uu Sulaymaan aabihi dagaal ku jiray waxa uu Sulaymaan u dareemay loo yaqaan Adirna oo ah qayb ka mid ah Istanbul oo Yurub ku jirta si aanay barta uga soo galin labadii dawladood inta uu ku mashquulsan mideynta dawladda islaamka Sulaymaan aabihi markii uu mideeyay dawladda islaamka ayaa isagoo ku socday meeshii uu daray inankiisa Sulaymaan uu geeriyooday dhimashadii Sulaymaan aabihi uu qariyay dhakhtarkiisu waxa kaliya uu sheegay wasiiradiisa oo kaliya maxaa yeelay inta badan waxa jira qoryo markii laba boqor isbedelayaan qalalaasa keena oo khalkhal dhaliya kadib dhakhtarkii Sulaymaan aabihi ayaa waxa uu dareerin si uu Sulaymaan ugu sheegay inuu aabihi dhintay oo uu yimaado Istanbul sidoo xilka u qabto isla markiiba Sulaymaan uu soo dhaqaaqay waxaanu yimaaday Istanbul sidoo xilkii la wareego maalintii ku xigtayna waxa la keenay meydkii aabihi dadkina waa loo sheegay inuu Saliim dhintay saasaanu taladii uu kula wareegay suldaan Sulaymaan al-Qaanuuni waa suldaankii 10aad ee dawladda Cusmaaniyiinta waxa uu ahaa suldaankii ugu xoogga badneed dawladdiisu dawladda Cusmaaniyiinta waxa la soo wariyay in muddo dhan 10 sano iyo dhowr bilood uu goob dagaal taagnaa cimrigiisa intii ugu badneed isaga ciidamada hogaamin jiray intii uu xilka hayay waxa uu qaaday 13 dagaal oo caalami ah waxaana uu furtay wax gaaraya 300 oo qalcadood waxa la sheegay inta uu faraska saarnaa oo uu soconayay inay gaarayso 40,000 oo kiiloomitir taas waxay la mid tahay qof adduunka ku soo wareegay sanadkii koobaad xilka Sulaymaan waxa uu la kulmay 4 kacdoon oo ka mashquuliyay inuu dagaal ku qaado Boortaqiiska kacdoonkii koobaad waxa sameeyay loo yaqaan Chambers oo ahaa gudoomiyihii Sham waxaana uu sheegay inuu ka soo horjeedo dawladda waxaanu isku dayay inuu qabsado Xalab laakiin uu ku fashilmay waxaanu amray Sulaymaan in fidnada la dumiyo aakhirkiina way ka takhaluseen kacdoonkii labaad waxa sameeyay nin loo yaqaan Axmed Baashe oo ka tirsanaa wasiiradii Sulaymaan aabihi waxaana uu doonayay inuu xilka ugu sareeyo dawladda qabsado xilkaas oo maanta u dhigmay ra'iisul wasaaraha laakiin kuma guulaysan inuu hadaf ka gaaro waxaan u tagay Masar isagoo doonayay in dadka xagga jooga uu xaqiisa u soo jeediyo si ay ugu magacaabaan boqor ka go'an dawladda Cusmaaniyiinta laakiin cilmimadii dawladda barta joogtay ee ka soo horjeedsatay aakhirkiina way dileenba kacdoonkii saddexaad waxa sameeyay shiici ka tirsan raafidada waxa uu isku keenay 300 ilaa 400 oo kacdoon wadayaal waxaana dagaal kala hortageen ciidamadii dawladda laakiin aakhirkii waa laga takhalusay kacdoonka afraad waxa hogaaminayay nin la yiraahdo Qalandar Jalaabi isaguna waxa uu ahaa shiici dadkii raacsanaa waxay gaareen 30,000 kadibna waxay laayeen muslimiintii sunniga ah ee deganaa gobolka Konya nin la yiraahdo Bahran Baasha ayaa loo soo diray si uu kacdoonka u dajiyo laakiin nasiib daro way dileen haddana ninka loo yiraahdo Ibrahim Baasha ayaa isku dayay inuu kacdoonka dajiyo waana ku guuleystay ninkii kacdoonka waday Qalandar Jalaabi aakhirkii waa la dilay